la socda maantay warar la soo boodbootiyey xasan sheikh iyo ninka la yiraahdo hadde Muuse Biixi maxaa kala haysta warka la soo boodbootiyey hadda hay'adahaas iyo dawladdan muxuu qaybadeeda kala duwan arrimaha amniga dib u kabashada dhaqaalaha dib u habeynta maxaan ku raadayay qaabka muxuu dhaqaalaha dalka loo waxaynayo iyo waxa ay ka galaan dhamaantood oo ay naga kaalmeyn karaan hadda ka hor aniga mar hore ay ugu dambeysay dalkan bariyahan ma imaanin bari aan anigu madaxweynaha termka hor iyo haddana duruufaha Soomaaliya wax badan iska bedelay marka dabcan wixii hore aan kala hadli jirnay wax ka duwan ayaan maanta kala hadlaynaa waxaan kala hadli jirnay sida loo soo nooleynaayo hay'adaheena sida noo kaalmay lahayn khaasatan arrimaha maaliyadda bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud hanti dhowraha guud xafiisyada sida loo qaabay lahayn sida loo dhisay shaqadooda sida bangiga dhexe inuu Swift code yeesho electronic transfer inuu yeesho bank correspondence banks oo adduunka la macaamilo maanta waxaa soo dhan laga soo gudbay bangiga adduunka la macaamilo bangiyada Soomaalida xataa adduunka la macaamilaan qaarkood laakiin arrimahaas in meesha ay joogaan hadda hore looga sii wado wali waxba dhimanaya ugu weynaa arrimaha amniga ayaan sidoo kale aad iyo aad uga wada hadalnay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka sidoo kale ayada qaab reform ama dib u qaabaynta ku socotay hay'adaheena dhaqaalaha iyo dhaqaalaha Soomaaliya in la sii kabo arrimaha humanitarianka iyo abaaraha jira ayaa qayb kale oo aad iyo aad uga wada hadalna kamid ah isbeddelka cimilada iyo duruufaha cimiladu ay keentay iyo sidii looga soo kaban lahaa ayaa kamid ah marka qodobo badan isla soo qaadnay laakiin dabcan waxyaabihii hore awal isla soo qaadi jirnay waa ka dowladda Soomaaliyeed anigu iyo wafdigii la socday waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gobolka Togdheer sidii weyneed ee qiimaha lahayd ay noo soo dhaweeyeen waxaan oran karaa soo dhaweyntaasi waxay ahayd mid qaran waayo nin karmeed iyo oday iyo midba ku ka ixtiraam badan madax dhaqameed siyaasi cid waliba meel fog oo magaalada ka fog bay naga hor yimaadeen waxaan qabaa inay u muujinayeen qarannimada iyo midnimada Somaliland oo meelo badan laga ducadeeyo inay tusayeen Somaliland inay tahay markay qarannimada tahay gobol walba da' walba iyo